adiga waynu kala xadhnaye waygu aabaha soo dhawaada sallu calaa nabi sheekada maanta waxaa la dhahdaa adiga waynu kala xadhnaye waygu aabaha gabadh iyo wiil baa isjeclaa magaalo kamid a magaalooyinka la dego aynu degno deetana aabihii wiilka waa reer ingiriis waxaan kugu uri waa reer dee odaygu weligiiba xaggaas ku maqnaa wiilkan iyo hooyadii faamiligu laakiin halkan ay degan yihiin marka wuxuu ku yiri way isguursanaynaa guri aabihii leeyahay buu markaa waxaa la wada socday 2 sano iyo dheeraad intaana inanku isagunba wax dib u dhigaayay waxay tiri aniga wax iga xidhnaa ma jirin 3 sano ku dhawaad markii sheekadeedu maraysay baan ku wuri de mana guursanaysaa mise na guursan baysid waxa ama nafasaxde magaalada mid kale ka raadsade dabadna wuxuu diisinka aabaan la hadlay aabaan waxaan ku raday soo socda arooskeenu u imanayaa sheekadu waa dhantay guri odaygu dhistay oo xaafadii makaan sheegayno magaalada ku taala laga dhisay oo qurux badan oo fiyuule buu soo xidho gurigaas oo maarta hadda la dhameeyay xaqi u dambeeyay maraya kaasin ku aqal galina oo la aroosay aabana way imaanaya sidii la isugu odaygina soo socda boo imaanayo uu reerkii wargelin maayada marka odaygu yimaadee ayuun baan reerkii wargelin karaa ayuun buu habeenkii daba telefoon soo diray hebel iska waran nabad sheekadeena halkaas ku soo afxidha oo maxaan ku sameeyay waxba wallahi inaan waxaan baadaydo meel kasta ka dhisan oo ku wanaagsan laakiin halkaas ka hada bila sababha haye waliba ka qaran maaye anigu waan guursanayaa inan baan guursanayaa intiiba inan baan kugu de hoos waday de waxaan sir walaasha wadigu sheegaaba inuu wiigana manayay ku sugin ee walaal fasax badigata waxa ku dhahday dib malahe waxaan rabaa inaynu is araggi u dambeeyay meel caadi oo public inagu ballamay hataa aad shaki qabto hayuu dhahay meelan ka fayada laga cabaa lagu ballamay teleefankaaga bay ku tinaan gacanteeda kaga dhilid gareeyaan rabaa sawirradii dib wuxuu ku dhahay waan kaga dhilid gareey laakiin ana dhilid gareey waxa ku tiri intaasuni waan is agteeda soo fadhiisay hadaad rabto ma dhib malahe oo ka dhilid gareeysa buu dhahay wixii sawira dhilid garintii ma aadin xagee aaday numberkii aabihii bay qortay aabba u soo baxay sabalkii bay screenshot ka qaadatay mobilkeedii bay u dirtay waanay ka tirtirtay meeshii ay ka dirtay message-ka sawirada adigu dhildhil garaysay way u dhiibtay de way ibu walaal weyn isu faataxana ku tiri daadad adigu sidaa garataan waqtigiina waad iga lumisay wiilow imkan hadad bila sabab iga hadhay de ilaahay taa kale aad jeclaatay de ha ku barakay hayuu dhahay nabaday odaygii bay lambarkiisii save garaysatay whatsapp-kii sawirkiisa basar waaba odaygu waaba isaga uu ku curtayo wax yar baa la kala weeyay malaha 20 sano shukaas ay bartay kala gash xagaad iga soo raacday allah waan ku aqaana xagaad joogto magaalada heblade waaba soo socday allah maniniyaba amaani haday jirto alla dumarku wax doonayaan wanaagsan saaru jecla alla marka wax doonayaan wanaagsan odaygiyo dawaqsan oo habeenka iyo galabta iyo subaxaba ma jacaylka ma amaanta ma erayada geeraarka ma ubaxa duulayaba odaygiyo gabkiisa ilaahu markuu magaalada yaa ku gaarsiiya yaa soo degay waxa ku taan wax xishoonaya deerbadku ku ma dhib male wala soo qaaday awlaadeedii baa joogta waayimi oday waa maqayay laba galbad markuu joogay baa la isarka koofeer intaan duhurkii sidaan aroos u socdo duhurkii intaan koofeer tagay baan waxaan soo marsaday waxa laalay wixii de makeup aroos un baan marsan tima ma tiri cidiya ma tiri maxay kala ma tiri guriga intaan ku soo noqdan bahalsada oo khatar ku dhacay oo sida uu isugu hogeeyay anoo sida qofka hadaan u eega buu dhahay ni habla yareeray imka joogo wallahi waa abday alla anigu reer miibaan ahaa wallahi waa abday ilaahay barakeeyo wareer ayuu odayga guriga u tilmaantay gurigiiba ka soo hor qaaday oo odaygu waa shawaqay bismillaahir rahmaanir rahiim shaydaan geeyo bureeqo malabaariye adu meel baa la tagay waa la soo wada casheeyay waa la soo noqday xishoodka iga daran waxa laaliyo wuxuu fartadu soo maya de bisinka maya haba degdegi ma nin weyn baan raali yahay degdegi maayo waa ka cadi yahay ku cuni doonaya guriga soo noqday odaygii arooskayga ka horeeyay buu yiri arooska wiilka way iigu dhantay diyaar baan hay ku tiraan wuxuu riyaal heer ilaahay markuu wax kula maagade wax yaro sidan u eegun buu ilaahay rida ka soo galaya inankiisi buu yiri wuxuu ku dhahay aabo bari mooyaan saadamba gabadh baan doonaya u fadhiisanaya meherkaas markuu dhacana hadii la yiraahdo waan aroosanaya degdeg baan oo qalgalaya adigana ginanta u sii sheeg meherka ku xiga kaagu noqonay
وأبا أروس كدق ومحمي إن بانو مسوي كريه إن تاسي because فصحي قبل بوها دي أدم كوسو كوستين أنكو أروسو لأنه حربش أبينا كفايدستو هل كانوا قبل عصام أو إمي بقى شكلي بو بدلي إنك يا حاجة لي اسكو قدام ملانس أروسكي دوت فيتيشن لو سو قال هولكا مقعو ما ساوي يجيبولي يصور كل كثير ورياها ميانا يدي هاي والله ما هو يدي oo aabo inantan miyaad istaqaanaan haa waa oday mirqaansane mobilkiin buu furo sawiraday aniga iga delete garaysay yumbu i tusay balay aabo miyana boqol kala baxay boqol kala bax bal dhexdeeda balse uu kala jarjarantay aabo baltimaheeda aabo waxana wax la dhaafi kara wuxuu ileen meelaad ka baxdaa ma jirtay hoosun baan roobi meherkii waa dhacay qabiltu anoo maqlay aabeed waan aqaanay bur anigu way deegaanka 3 sano oo aabeed korkan ka yaqaan wali isman hortaagan laakiin dushan aabeed walaalada waxba ka yaqaan hortayda loogu meheray toddoba casho gudaheedna reerkii ku diyaar garoobay ku yiri gurigii anigu aan tusay aan ku yiri guriga la xaqaaqayna kugu aroosina baa baa aqalga ala rag laakiin anaga way naga jab qarsi badan yihiin gabadh haday tahay qarsan karteen jabkaasi mar hore qayrin lahayd waa mahadsantiin inta adkaysiga naga adkaysi badantiin qaarkiin arooskii gaadhigii buu aabay dhiibay wuxuu inanta u shaqay aabo anigu nin weyn baan hode marba inanta ma qaadi kare u shaqay aaba inanta ilaada curadkaygii oo meeshay doonaysa geeyo wakas dhag gaadhi sayra fo baro markii sii iibsaday yu gacanta iga saar maxaa oran karaa hooyo macaan un bay tiraahdaa hooyo macaan ana hooyo go'a hogta lagu jiidi sidii way adigu arooskii ku dhamaaday dee waan aroosnay doonidaydii baa dhacday aqal kiraa aniga la igu aroosay hool fiican baa la igu tumay si fiican baa gabadha igu doonay iga xoolo bixiyay alaabta markaan dooranayna marka aniga iyo inantu iyaguna marka de gabigoodu waxaan imuunkii bay iskaga jiraan de week labay de guri leey ayuu wuxuu dhahaa aabo hagaad joogtaan markaas waxaan ku dhahaa aabo meel weyn kaana sheegano magaca magaalada kula baan garanay halkaas aan aabo joogno haye aabo hooyada ma ogtay hooyada sheegay ma garanaysaa inantu aroostay hooyada de waa ina yar wax xariifad waan qof reer magaala iyadan soo gaxaynay aabo hay'ad la doorta alaabta wadiga shirka ku sida ha aabo lacagtoo dhan hooyeen u dhiibay iyada idin kala maamulaysa waxa laalay wuxuu u baahdo gacanta ka saar أنا ضحكت أباه يقول ما مليسه ولا هذا شو حبيبي أنا مقلي حبيبي على أبو عم بيعرف تدورتنا أنت أسأل لي يريد هي مكسر شوي هي مكسر والله ويلكاسيا واقع بها وروح يقول عاي أمر حاسن أروس كسيدي بقول عاي وينوش قيني سي احترام له وأنا أروسني أنت أنا استعليني عن قبي أبو يسكرافي هو يدي هرتوي مسيرت hooyo cirkay martay de waxay tiraahdo dhowr sano maqnaabaad iminkan inta timid tiri inaan kan aroosaya oo aan isku ogeyn inaan u kaalay aroos bad adiga aroosanaysa islaanta cirkaas ay martay islaanta adigu waa la dejiyo anigii baa xataa hooyo deelan maanta aniga waa weyn xishoodo de wixii masartira la siinay waa la siiyo hooyo xaaladeeda adigu nagumay badan laakiin markan xataa aaba aroostay wali dagaalkii uu taagnaa oo mar dambe odayaal iyo wax fadhiisteen wuxuu dhahay anigu waan aroosanaya warkii cadad xanaaq lidid joog lidba gabadhay ragu markay shilinka yara haystaan waa istubrin moogti amar ay xaasil aabo u dhoofay gaadhigii markaa gurigu yaalay markaas intaan la hadlo waxaan ku aabo gaadhiga cusub aad iibsatay waxaan rabaa inaan aad shaqadana ku aado maartay dee wadana dee wakaas ila kulli ana aabo hooyada la hadlaye hooyada qurux baan la hadlayaa ana aabo dhahay inaan kasi waanu tagay marka albaabkii gubsi deyrka markaas la soo soco markaas ma iigu yeeray heblaayo sanka yar taagay moogti marka tii waxaan ku aabaan wada hadalay gaadhigana waxaan rabaa inaan gaxayso furayaashii man rabaa waayo aniga xaajiga wada hadlaynay hooyo kugu soo warcelinay hooyo macaan ma soo fadhiisatid hooyo maya waan sii socday haye hooyo odayga walaasha xabiibi aniga micid kale ay joogtay ay qaadayo ayaa mahamba darawalnimadaan baranayo liisankii baan rabaa soo waxaan rabaa inaan gaxaystayo maya isagaan gaadhi kala dhahaya doona adiga iskala gaadhiga xabiibti war odaygii waa la kala wareejiyey gaadhigii gurigii inanta way isku dartatay iyo odaygiiba anigana dee guri kiraaban iska deganay dee sheekada halkaasay kusoo dhamaatay waan ku salaamay mustafa magacayga waa caadi baa tiraahdaad sheegtay wallaahi laakiin meel bay kaaga soo hadhaa wareer